halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban kuwa FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo internetka ciwaanka iyagu yahay bbcsomali.com. arooryo suuban idilkiin baa khiyaartana dhegaysatay waa jimce 15 May saacadda Afrikada Barina haatan waxay tilmaamaysaa 7 oo gowa idaacaddan subaxnimana waxaan idinku haynaa wararkii u dambeeyay fayraska corona shacab duraya sharciga gaadiid qaad lagu soo qabtay booliska Somaliland kula wareegay hay'adda caafimaadka adduunka oo ka dayrinaysa culayska maskaxeeda fayraska corona dadka ku keeni karo iyo dhibaatan baa xad laha ka dhacday meesha boobitaan dukaamadii soo yaaceen wixii labay qaateen dubeen dhibaatada farabaan waxay soo gaartay waxa waa Soomaalida iyo Etoobiyaanka waa Soomaali ganacsata oo kamid ah dad ajaanib oo lagu boobay ganacsigoodii Koonfur Afrika soo saaraha barnaamijku waa Ciise Xaji Cabdillah oo Axmed Nagaashin oo nila socodsiinaya Ramadaan Kariim saaxiibayaal waatay qodobada soo faahfaahsanay inoo dambeeyana dhageystayaal marka hore Cabdiraxmaan Xaaji Cadde oo warkii dunida gurigiisa inooga soo tabiya mahadsanid Nagaashe saynisyahano ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaya sanadka soo socda ku dhowaad 2 bilyan qof oo ku nool qaaradani Afrika inuu haleelayo fayraska corona saynisyahanadu waxay intaasi ku dareen inay qaaradda Afrika cudurka ugu dhimanayaan ilaa iyo 190,000 qof waxaa kale oo ay sheegeen daraasad ay saynisyahanada WHO sameeyeen in ay ku ogaadeen 1 milyan qof in ay u baahanayaan in isbitaalada lagu dabiibo iyadoo adeegyada caafimaadka qaaradda xilligaasi ay buux dhaafinayaan bukaanada fayraska corona ayaa dunida oo dhan ilaa iyo hadda ku dilay dad ka badan 300,000 iyadoo rubuc dhimashadaasi ka mid ah uu yahay dalka Mareykanka oo kaliya saddexda dal ee Baltika, Estonia, Latvia iyo Lithuania ayaa xuduudahooda ay u xiran cudurka safmarka ee corona dib isugu furay waxayna wadamadaasi sheegeen in kasta oo xuduudaha saddexda dal la isu furay haddana cid kasta oo xuduudaha dalkaasi ka soo gasho in ay marayso 2 toddobaad oo karantiila caruur ay tiradoodu gaarayso 35 oo hooyooyinkooda ka maqan yihiin ayaa la sheegay inay ku xayiran yihiin caasimadda Kiev waalidiinta caruurtaasi ayay u suuragelin in ay dib u soo laabtaan oo caruurtooda qaataan maadaama xadka Ukraine la xidhay tani iyo bishii March coronavirus awgeed gobolka New South Wales ee dalka Australia ayaa bilaabay dabcinta xayiraadaha ka dhashay fayraska corona dukaanada maqaayadaha iyo waliba hoteelada cunada ayaa dib loo furay iyada oo loo ogol yahay halkii mar ilaa iyo 10 qof in ay u adeegaan iyagoo markaa ilaalinaya kala fogaanshaha bulshada kulamada dadkana waxaa loo ogol yahay ilaa iyo 10 qof inay kulmaan xaafaduhuna ay booqdaan 5 qof oo kaliya dalka Mexico ayaa diiwaan geliyay dhimashada maalinlaha ugu badnayd tani iyo markuu fayraska corona uu ka dilaacay dalkaasi ku dhawaad 2,500 oo kiisaska cusub iyo dhimasho ka badan 250 ayaa maalin kaliya laga diiwaan geliyay dalkaasi Mexico ee dhaca koonfurta Latin America ugu dambeyn dowladda Britain ayaa sheegtay in bisha June albaabada u furayso ciyaartooyda kubadda cagta ee dalkeeda ku soo laabanaya dowladda oo kulamo la qaadatay hay'adaha maamulka kubadda cagta wasaaradda deegaanka ee dalkaasi waxay sheegtay in ay dardargelinayaan sidii kor loogu soo qaadi lahaa daawashada kubadda cagta ee toos ay u daawan karaan dadka xiiseeya kubadda cagta ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ee dhici lahaa sanadkan ayaa la xayiray laga soo bilaabo 13 bishii March kadib markii cudurka safarka uu ka dilaacay dalka Britain warkii idaacadda subaxnimo waa naga inta dib ku celiyo Axmed Nagaashe iyo stuudiyeena aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadde oo warkii subaxnimo inoo marinayay uu kaasi hayay dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda waatan ku bilaabay sidii aad warkaba ku maqlaysaan dhageystayaal hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka dayrinaysa in cudurkan COVID-19 laga yaabo in aanu sida dunida kaga dabargoyn xataa haddii la helo dawooyin lagula tacaalabay tiri waxaanay sheegayaan saynisyahano ka tirsan WHO-du in ay suurtagal tahay in ay cudurka qaadaan sanadkan inta aanu dhammaanin 250 milyan oo qof oo qaaradda Afrika ku nool Ciise Xaji Cabdillah oo wararka Aisha ku hayay haatan stuudiyaha la fadhiyo oo warkaas iyo wixii kale faahfaahsan bayno haya Ciise Axmed waarin walaac badan abuurayso hay'adda caafimaadka adduunka waxay sheegaysaa in ka badan 2 bilyan qof ay
ku nool qaaradda afrika in cudurkan ay ugu dhiman karaan sanadkan oo keliya. hay-aduna waxay intaasi ku dartay axmedow in ka badan 190,000 oo qof ay cudurkan ugu dhiman karaan qaaradda afrika. dabcan waxay eegeenaan u malayaa oo aysan soo bandhigin ilaa hadda in hay-adaha caafimaadka ee qaaradda afrika ka jira iyo tasiilaadka iyo sida ay caafimaadka dadka u gaarsiinayaan inay aada u liitaan ayay ka cabsi qabaan. waxayna sheegeen in 250 milyan oo qof ee qaaradda afrika ku nooleen cudurkan ugu dhiman karaan sanadkan oo kaliya, waana tiro badan oo haatan laga cabsi qabo. hase haatee axmed, intaasi haddii aan uga baxna qaaradda afrika, wararka kale ee corona ku saabsan waxaa haatan goordhoweed lagu dhawaaqay tirada dadka ee cudurkan ugu dhimatay caalamka maalmihii ugu dambeysay lama sheegin. waxaa la sheegaya in 200,000 markii ugu dambeysay. haatan 300,000 oo qof ayay axmedow lugta la gashay ayaa laleeyahay dadka tiradan ugu dhimatay, iyadoo tirada ugu badan ay ka imaadeen dalka maraykanka oo 80 iyo ilaa 7,000 aminkan maraykanka uu maraya. waxaa ku xiga dalka UK ee dalka ingiriiska, talyaaniga, faransiiska iyo Spain. arinta kale oo walaaca badan axmed waxay tahay in magaalada cadan ee dalka yemen laga soo sheegaya hay-adaha caafimaadka iyo hay-adda Save the Children ay sheegtay in ilaa 380 qof ay isbuuci lasoo dhaafay cudurkani coronavirus ugu dhinteen magaalada cadan ee dalkaasi yemen. yemenna xaaladeeda waa ka warhaynaa oo waa meesha ugu macluul xun caalamka hadda, iyadoo dagaalan ay ka socdaan. axmed, ugu dambeynta wararkan haddii aan eegno dalka mexico waxaa la sheegayaa in 24 saac ugu dambeeyay 2,500 oo qof ay cudurkan ugu dhinteen. waa arin walwal ah dadka ku abuureyso, iyadoo hay-adda caafimaadka adduunkan ay hadda sheegayso in cudurkan uu yahay mid dadka la noolaan doono oo sii jiri doono oo aan albaabadeena ka bixi doonin. aad iyo aad baad umahadsantahay ciise xaji cabdille oo inoo soo koobiyey wararkii ugu dambeeyey ee coronaviruska iyo wixii ay ka tidhi hay-adda caafimaadka adduunku qaaradda afrika dadka ku nool in ay ka qaadi doonaan tiro fara badan oo 200 oo milyan iyo dheeraad ah oo cudurkaasi ku dhici doono inta aanu dhammaanin sanadkani. waa tahay dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da. bal haddaynu wararkii soomaalida haatanna eegno, booliska jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday ee somalilan ayaa la wareegay gawaadhi lagu eedeeyey inay sideen qaad sharci darro ah markii la qabtay oo ay ku xadgudbeen mamnuucidda muddaysan ee joojinta qaadka ah oo ahayd 25 maalmood, sababtuna tahay baa layidhi fayraska corona awgii. dowladda ayaa la wareegtay baabuurta lasoo qabtay oo ku buufisay midabka baabuurta bilayska oo sidaa ugu wareejisay ciidanka booliska. waxaase dadkii baabuurta lagala wareegay ay su-aal geliyeen sharciga loo maray ee loo cuskaday in lagula wareego gaadiidkaasi. ilaa haatanna cabasho ayay qabaan oo weli dacwado ayay la taagan yihiin maxkamadaha. khadar xaaji cabdilaahi ayaa warbixintan hargeysa nooga soo diray. inkasta oo ay badankoodu racfaan ka qaateen xukunka ay maxkamaddu lahaanshaha baabuurtooda kaga wareejisay, haddana looma joojin ee waa la dhalan rogay gaadiidkii. ciidanka booliska ayaa midabka ka bedelay kuna buufiyey midabka buluuga ah ee iyaga u gaarka ah. oday xuseen cabdilaahi ayaa waxa aan kula kulmay maxkamadda isagoo oo sita faylka dacwadiisa, wuxuuna ii sheegay inuu subax walba halkan ku soo kallaho isagoo oo ka quusan la gaadhi booyada oo uu dhowaan iibsaday, waxaantiyana uu intaas lahaa. gaadhigaasi isaga oo ka yimi meeshaa la yidhaahdo aw barkhadle ka soo dhaamiyey oo soo socdoy 3 nin yihiin baa la qabtay. qaad qaylaada bay siteen, gaadhiguna wuu biyeysnaa. run ahaan markay dabeeto halkaa marayee la qabtay gaadhigii, markay katiinada lab intay joojiyeen yar baadhbaadheen ay qaylaad ku arkeen, inamadiiba katiinad la boobeen. kii gaadhiga waday dabeed wuu baqday inan yar baa tow buu yidhi. 2 inanay kalea lagu soo kaxeeyey, 2 inanay kale waa la sii daayey. gaadhigii cid lagu eedeeyey ma jirto, waa la xidha, waa la xukumay baa laygu yidhi. waanan daydeeyey ilaa maalinkaa maantaa baan ogaaday. adigan ogdee waxa dhacay oo wakhtiga waatan la yidhaha soo bixina, kaasaanu bariiska iyo masaariifta iyo umuuraha ku soo saarin. 24 qof oo waxaan anagu dhalay iyo waxay dhaleenba gaadhigaasaanu ugu shaqaynayn. xataa 2 baloodhoon deganaa baan mid iibiyey oon booyadda u siiyey, kii kalena aanu deganin. dowladda ayaa mamnuucday in qaadka la keeno muddo 25 cisho ah si loo xakameeyo faafidda cudurka covid-19, laakiin muddadaas waxaa ka harsanba dhowr maalmood. intaas kadibna qaadka keenistiisu way bannaan tahay. dad badan ayaa u qaadan la in gaadiidka lagula wareego sababta ah waxa aad sideen qaad
maalmo kadib la fasaxi doono keenistiisa. horta magacayga marka hore waa Mubarak Cabdi Cabdilaahi gabadha la buufiyo wallahi doorta wali gaarigayga maalintii la qabtay sidii loo jiitay ugu dambeysay wax uga daba kama hayo mana arag laakiin dadka baabuurta laga buufiyay iyadana anagu isku mid baan mustacid baan wada haystaa waayo hantidii dadka iyo dadkii la xukumay ismooda raaci karaan laba kaliya aabahay xanuunsanaya markii horeba gaariga loo iibiyey oo 18 sanadood liyaal ahaa ayaa lagu qadqaad jiray markii xaalad serious noqotay lagu qaadiyay xaafadana masaariifta yar ugu soo saarayay inaan walaalnaa waday oo dhaweeyaha kaga shaqeynayay asahaati isagoo dhaweeyaha kaga shaqeynaya oo masallaa qofkii ayuunba qaad yar loo soo fuulay lagu qabtay waxaa sidoo kale xidhan dad badan oo wadayaal baabuurta ka ahaa oo 3 sano iyo badh xadhiga ay u dheer tahay ganaax lacageed oo dhan 3 milyan oo shilinka Soomaaliland ah. garyaqaanada ayaa sidoo kale arrintan aad uga horimi waxayna ku doodayaan inaanu jirin qodob sharciya oo gaadiidka lagala wareegay loo adeegsaday. Maxamed Maxamuud waa gudoomiyaha garyaqaanada Soomaaliland. arrinta maalmaha laga cabanayay qaadka hantida lagula wareegay lagu xukumay waa arrin sharci darro ah loomana marin nidaam sharci sababtoo ah xeerkan lagu xukumay waa xeer customiska iyo qodob penal code 505 xeer customisku maaha qaadkan maanta la leeyahay lagula wareegayo wuxuu u yaqaanay xalaal oo waa kii shalayba lagu cashuurayay 2016 baa xeerka la dejiyay daraadiyo tii ka horeysay waa lagu cashuurayay xalaal buu yaqaanay qaadka xeer cusub oo lagu xaaraantinimeeyay oo ka soo baxay ama xaalad emergency dalka la geliyay oo nidaamka dastuurka loo maray oo baarlamaanka laga ansixiyo oo lagu qabsadayna ma jiro waxa la fulinayaa waa go'aanka gudida ay soo saartay gudida coronavirus go'aanka gudida coronavirus soo saartayna ma aha go'aan sharciya oo miisaan sharci leh oo maxkamado lagu xukumi karo amarkooda maxkamada ay ku xukumi karaan baahanti lagu wareeg karo ma dhammaan xeerarka daraagiska la xiriira waxa kamid ah xeer number 21 oo xeerka khamriga iyo xashada iyo waxa lagu qaadaa xataa kaasi gaadhi lama wareegayo wuxuu qaadaya 5% ayaa la gaadhi xashuuriya xeer ilaalinta dambiyada ku soo oogtay dadka iyo baabuurtooda ayaanu xafiiska ugu tagnay si aanu wax uga weydiino sharciga ay u adeegsadeen jawaabsan namaysin. Khadar Xaaji Cabdilaahi BBC Hargeysa. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay koonfur afrika ayaa wararka ka imanaya waxay tibaaxayaan in ganacsato ajaaniba oo dukaamo ku lahaa meel 130 kilomitir u jirta magaalada Johannesburg la boobay hantidoodii qaarkoodna dhaawacyo ay gaadheen. ganacsatada la boobay waxaa ku jiray kuwa Soomaaliya oo sheegay in khasaare badani gaadhay. Cabdilaahi Xasan Xuseen oo ka mid ah ganacsatadaas oo khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaan weydiiyey bal haddaynu uga warramo sida ay wax u dhaceen. magaaladan degannahay anaga hadda waxay ka tirsan tahay Cape Town ka tirsan tahay Western Cape marka 135 kilomitir u jirtaa marka meeshaas boodhka ka dhacay. bal hadda siday wax u dhaceen faahfaahin dheeraad ah naga sii. haddaan ku faahfaahiyo walaalow dhibaatan baaxad laha ka dhacday meesha boobitaan iyo aduulaha ku soo madiidin dukaamadii ku soo yaaceen wixii labay qaateen gubeen marka Soomaali iyo Ethiopian isugu jirta meesha kuba malaawiyaan oo aday wax yar laga qaatay laakiin dhibaatada fara badan waxay soo gaartay waxa waa Soomaalida iyo Ethiopianka wax khasaare ah oo dadka gaadhay hantida mooyaane ma jira. waxaa jira wiilal oo dhibaato soo gaartay wali hadda aysan dhimasho aysan jirin hadii dhaawac duula ku soo dhalinyaro oo hadda wiil isbitaal ku jiro kuwa kalena bukaan banaan joog ay yihiin hadda right now dhimasho ma jirto saas way xaalka walaalo. waxaad ii sheegtay in goobtan boobku ka dhacay ay u jirto Cape Town 130 kilomitir soo lama odhan karo idinka dadkii aan waxba u reebayn deegaanka ahaa oo ilaa xataa tuulooyinkii doonayay inaad ka ganacsataan oo fursadihii ka xidhay. maya sidaas looma dhigi karo hadalka waxaa waaye dadkan dad waxaa waaye tuulada meesha ku taalo ganacsi kama uusan jirin marka Soomaalida way u fududeynayeen dadkan waxay ka sameeyeen dukaamanay ka fureen si dadka ugu fududaato howlahooda ayakana waxaa waaye meelo fog maadaama ay wax raashin ka doonanayeen marka waa u fududeynaan oran karnaayo oo raashinka iyo waxay u baahnaayeen aan hoos aan ugu soo gelin aan dhigi karnaa. waxaa jiray sanadkii 2019 aynu soo dhaafnay sharci ay dawladdu doonaysay inay soo saarto oo dadku aad u hadalhayeen kaas oo wasiirka horumarinta ganacsiga yari uu sheegay in fursadihii ay dadka soo galootigii ka qaateen dadkii muwaadiniinta ahaa oo ay gaadheen buu yidhi ilaa xad ay goodhiyaha yaryar ama dukaamada yaryare xaafadaha tuulooyinka ku dhex yaalla ay furteen taasina aanay gar ahayn
maxaad sharciga u raaci laadiin ee aad doonaysaan in aad meel walba wax uga heshaan miyaan la odhan karin idinka dadkiina soogaleetigaahi idinkaaba dhibta gacmihiina ku doonanaya oo dadkii isku diraya lama oran karo nagaashii haddaan ku idhaahdo hadalka sababtoo waxaa waaye ayaga dhexdooda ganacsigan ma aysan ku haynin shaqadooda badan dadka madowga waxay u badnaayeen beeraha iyo meelaha kaleento fogfog maadaama ay ku dhib qabeen meelaha ay raashinka ay ka doonanayaan ay aheeday meelo saa'id uga fogfog magaalooyinka anaka waan u fududaynay hoosooda baan u keennay meel marka ayaga laftirkooda way noo mahad celinayaan oo dadka deegaanka ah walow mararka qaar markay dhibaato iska dhacdo ay u badan yihiin dad dhibaatadaada iskala noolo raashinkidii waxaasay isaga yaacayaan asay sidii cawaannimo isaga qaadanayaan bogumaana hadda anaka waxa dhibaato kaloo gooniyahu kusoo korrinay inay jirta ma aaminsanin anaka markaaba waxaad doonaysaa inay dadkayna dhegaysanayaan rumaystaan adiga oo aanay rumaysanin sharciga ay dowladda koonfur afrika soo saartay iyo wasiirkaa hadlayba wacan waa anaka wayna taageersan yihiin si haddii loo dhigo sababtoo ah meelaha oo magaalooyinka ka fogfog raashinka inta habeenkii inta ciyooba la xirayaa goobaha laga xirayaa markay shaqada kasoo laabtaan waxay si taani alaabta muu heli karayaan anaka waan u fududaynay ayakana way nagu taageersan yihiin oo kolley ninka ganacsadahi isagu dhibtiisa iyo faa'iidadiisa unbuu ka warramaa laakiin waad ka weecweecanaysaa in aad dadkii ugu tagteen xataa ilaa ganacsigii hoose ee shilinka ahaa arrintaas oo ay dowladdu sheegtay inay wax ka qabanayso ma waxaad leedahay ma jirto oo waa ma dhacdo maya sidaas ma dhahayna anankaa sharciga waa u hogaansamaynayaa oo waddanka soo baxay waana raacaynaa laakiin waxa hadda adiga si toosa u soo baxay oo dhaqan galay ma ahan weli maadaama mar kasta la boobayo dukaamada dadka soogalootiga ee tuulooyinka yaryar ee koonfur afrika ku yaala dhacdooyinkaasi miyaanay marag u ahayn hadalkan wasiirka ka soo baxay sanadkii hore iyo aragtida ay qabaan dad badan oo reer koonfur afrika ah oo dan leeyahay anaka sidaas ma aaminsanin haddaan xaqiiqada kuu sheegno dadkan ayaka laftirkooda waa dad nolol jiris ah oo haddii la kuusan wadamadooda dhibaato ay ka jirto oo noloshoodii haddii la kuusan mudidin ku noolaa waayeen nolol usoo doonteen waddankan marka sidaas darteed waxaa waaye ayaka laftirkooda dadka qaxootiga ah iyo dadka ajaanibta ee waddankan ku nool waxaan dhihi karnaa dad ayaka laftirkooda u baahan nolol waaye marka noloshii meeshii ay ka gasho ayay soo gelinayaan ayakane waa tahay kaasi waxa uu ahaa cabdilaahi xasan xuseen oo ka mid a ganacsatada soomaalida ah ee dukaamadoodii la boobay qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c da oo aragtidooda ka dhiibanaya ayaa haddaba fariimahooga facebooka noo soo mariyey arrintaasi waxaana ka mid a dadkaasi xalane cali xalane oo jooga magaalada tan nairobi waxaanu leeyahay dhibaatada lagu hayo soomaalida south africa waxaa isugu darsamay korona iyo dhaca allaha ka badbaadiyo waa masiibo nin wixiisii la dhacayo marka hadda ganacsatada reer halkaas ku nooli ay cidna uma maqno ceelna uma qodno ayuu yidhi ugaas maxamed mahad bulaale oo isna jooga aan soo sheegin halka uu joogo ayaa waxa uu sheegayaa uu leeyahay aad ayaan uga xumahay soomaalida lagu boobay dalka south africa runtii arrimahani waxay ka mid yihiin masiibooyinka ugu waaweyn oo mar waliba kusoo noqnoqda soomaalida ku nool dalka south africa waxaan leeyahay soomaalida xoolahooda lagu boobayo sidaa sharci darrada ah ilaahay booskoodii ha idiin soo buuxiyo kuwa ka badanna ha idiin soo geliyo waxaan joogaa buu yidhi oo xagga dambe kaga soo qoray magaalada afmadow waayahay qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da ayay kuwaasi ahaayeen oo fariimahooga ka dhiibanayay dhaca loo geystay dadka soo galootiga ah ee dalka koonfur afrika waa tahay bal haatanna aynu mar kale ku noqonno wararkii soomaalida ee sanad walba maanta oo kale 15 May waxaa Soomaaliya laga xusaa maalinta dhalinyarada Soomaaliya waxaana loo asteeyay maalintan in lagu xasuusto doorkii dhalinyarada Soomaaliya ku lahaayeen halgankii xorrimadoonka waxaa maalintan sanadkii 1943 goboladii Talyaanigu gumaysan jiray ee Soomaaliya laga aasaasay urur dhalinyaro oo loo oran jiray Somali Youth Club markii dambena xisbi siyaasi isku rogay oo noqday SYL Bashiir Axmed Cismaan oo ku magac dheer kacaan oo taariikhda ururiyay ayaa Cabdirasaaq Xaaji Cato uga warramay taariikhda dhalinyarada iyo doorkooda weeye inaan idhaahdo marka hore ummadda Soomaaliyeed hambalyo 77 guurada ka soo wareegtay aasaaskii ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed marka ururka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 1943 13 dhalinyaro ayaa aasaasay waxaa la aasaasana markaas waxay ahayd naadigii dhalinyarada Soomaaliyeed ama Somali Youth Club SYC kadib ayaa markii la gaaray mataqaanaa 47 ayaa Yaasiin waxa uu codsaday in loo keeno Cabdullaahi Ciise Maxamuud si hawshaas loo wado shuruudna uu ka dhigay maadaama xisbiga la doonayay in loo bedelo xisbi siyaasi oo uu ka baxo naadigii sidaas ayaa maaragtay Cabdullaahi Ciise waxa loogu diray
nin la oran jiray axmed aloore ka soo waday meesha la yidhaahdo hiiraan ama beledweyne asaga ayaa keenay halkan marka yaasiin wuxuu sii noolaa muddo 3 bilooda yaasiin markuu dhintana cabdullaahi ayaa la wareegay sanad guuradii afaraad waxaana lagu dhawaaqay SYL in loo bedelay oo siyaasi laga dhigay laga baxay naadigii marka dhalinyaray ahaayeen qiyaastii da'da marka dhalinyaro la yiraahdo maxaa lagu qiyaasi karaa da'day u dhaxaysa dhalinyaro dhalinyaradii barigaas da'doodu waxa ay u dhaxaysay 25 sano ilaa iyo 15 sano ayay u dhaxaysay waa gartay qaarkood oo ilaa 30 ku dhawaa waa jira sida yaasiin iyo saqaawdiin bashiir wax badan baad ka qortay dhalinyarada markii la yiraahdo taariikhda Soomaalida barigaas dhalinyaro hataa aqoontooda isku hooseysay wax badan oo maanta caalamka jira aan barigaas uusan jirin maxaad ku tilmaami lahayd waayahaas waxaan ku tilmaamayaa adduunka sida taariikhduna baraysa ma jirto ummad horumar dhaqan dhaqaale iyo mid bulsho gaartay oo ay dhalinyaradeedu ka fadhiyaan horumarka ummadi gaartay waxay ku xiran tahay isbedelka dhaqan dhaqaale sida u fakaraan dhalinyaradooda wax u qabtaan ugu heelan yihiin horumarinta dalkooda iyo dadkooda una sugaan ugana qayb qaataan sugidda amniga dhalinyaradii barigaas Soomaaliyeed ee jirta waxay haysteen waxa wax ugu fiican oo shahaado ka fiican oo wax la barta ka fiican taasoo ahayd niyad sami walaalnimo Soomaalinimo qabyaalad la'aan taas ayay haysteen taas waa diblom kasta waxaa ka sarreeya maantay haysato ninka nadiifka ah oo qabyaalada aan lahayn oo wadankiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa u damqanaya dhaqankiisa iyo diintiisana ilaashanaya doonayana inuu wax gaaro waxa uu gaarayana taqiim u ah oo u niyadsan oo isagoo niyad hufan leh hawsha qabanaya laakiin nin kasta oo shahaadooyin waaweyn wata oo niyad xun oo dabad ilif ah oo isticmaar u shaqeeya faa'iido male waa gartay aanu imaano dhalinyarada hadda joogta maxaan ku sheegi karnaa ama ku tilmaami karnaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waaqiciga hadda haysto horta dhalinyarada Soomaaliyeed heerar kala duwan ayay soo mareen markaas waa markay halgamayeen marna waa markii xorriyadu dhalatay oo la lahaa dhalinyaradii maanta ayaa tihiin iyo madaxdii berito hadda muddo 30 sanaana akhlaaqiyaadkii iyo wixii oo lumeen dhalinyaro badan baa mustaqbalkooda ku lumay 30 sano oo ayagoo 10 sano jira ama 15 sano dhibaatadii wadanka dhacday iyaguna ubad dhalay maanta sii waayeelo laakiin dhalinyarada maanta joogta waa dhalinyaro la timid hal abuur fara badan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan arko dhalinyaro Soomaaliyeed oo qalabka neefqabatinka soo saarayso korontadii soo saarayso howlo badan qabanayso marka dhalinyarada Soomaaliyeed waa la dhabarka maanta waxa la dhigi karaa iyo aayaha ifay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dhalinyaraduna waxay u baahan tahay mar walba hogaamin wax hogaaminta ka soo haraa ma jiraan marka haddii hogaamintu mar walba toosnaato loona cadaalad falo dhalinyaradu way hagaagaysaa fursadaha shaqana laga dhigo war maxaa taqaanaa ee yaa taqaanaa meesha laga saaro dhanka kale soo lama dhigi karo dhalinyaradu qayb bay ka yihiin dhibka haatan taagan oo inta badan waxa dagaalama ee xoogga loo isticmaalo waa dhalinyaro dad kasta oo dagaalamaya xoogoodu waa dhalinyaro taasu shaki kuma jiro marna kama taagna dadkuna ma aan fara wada siman kuwa waaqicii isku wacyiina kuma ay noola kuwa badan oo nadiif ah jiro dalka iyo dadka u shaqaynaya kuwa weli aan waxba garanaya jir qof walba mar buu baraarugu gaaraa waxaan rajeynayaa dhalinyaradaas kale markay arkaan dhalinyaradan wax qabanayso hal abuurka iyo la timid mataqaanaa fikradda iyo farsamada inay iyaguna baraarugi doonaan oo ay bulshada baal ka raaci doonaan marka waxay u baahan yihiin meel ay kusoo hirtaan iyo dad ay ku hirtaan iyo shuruuc loo dejiyo abaabul siyaasadeed iyo ku talagal in la shaqaalaysiiyo oo lala dagaalamo mataqaanaa faqriga iyo shaqo la'aanta marka maantay iyo shalay waa kala duwan tahay dhalinyarada maantay waa dhalinyaro online xataa wax ku baranaysa shaqaynaysa way dhacaysaa ummad wada fiicnaanaysa ma jiro waa number wuu jirayaa culeys ah sidaas marka dhaliil guud anigu uguma jeedin karo dhalinyarada laakiin waxaan rajeynayaa inay soo kabanayaan oo ay kor u soo socdaan bashiir kacaan axmed cismaan ayuu kaasi u warramayay cabdirasaaq catoosh waa tahay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka dardaar warinaysa culayska uu maanka dadka ku hayo fayraska corona inuu keeni karo in cudurka dhimarka ku dhaca gaadhaan heer aan hore dunida u soo marin haddii tirada dadka uu fayrasku ku dhacayaa sida ay ku socoto usii korodho maadaama oo wadamadu ay isku dayayaan inay fiditaanka cudurka kaga hortagaan inay bando ku soo rogaan oo ay taasina xayiraysa dhaqaalaha dalalkaas ayaa waxay arrintaasi keentay culays nafsaani ah oo ku habsaday malaayiinta qof ee shaqala-aantu ku dhacday Charles Bogo ayaa warbixintan ka soo diray cabdiraxmaan nibil ayaa inoo haya waxaan dhex lugaynayaa goob aflaamta lagu daawado oo ku taala Lagos kumanaandada ayaa isugu iman jiray oo filim daawashadu u ahayd waddo ay kaga baxsadaan buuqa nolosha iyo sawaxanka magaalada marka aad eegto mashiinadii samayn jiray saloolka lagu daawado filimaanta way haawanayaan
kuraastii tiyaatarkuna way bannaan yihiin waana sawir fiican oo tilmaamaya sida noloshii isu beddeshay malaayiin ayaa bandowga iyo nolosha la kala xidhay saamayn ku yeelan doontaa caafimaadkoodii maskaxda nigeriyaanka Lagos ku nooli waxay isku dayayaan la qabsiga noloshan cusub inkastoo xayiraadihii qaar la qaaday welise ma bannaana in dadku isu yimaadaan iyagoo badan waana la joojiyey wada cibaadaysigii guud ee ay dadku fali jireen dhanka kale inkastoo dawladdu waddo dadaalo ganacsiyada kacaamaya lagu kaabayo dhaqaalaha sabaynayana lagu joojiyo haddana ganacsiyo yaryar oo badani waa ay kaceen qaarkoodna shaqaale dhimis ayaa ayba sameeyeen waxaan dhankan taleefanka kala hadlay 30 jirkan lagu magacaabo Olelekan Ambola wuxuu lumiyay shaqadiisii tigidh iibinta tiyaatarka aflaamta bishiina dhaaftay wuxuuna ii sheegay inuu ka warwarsan yahay qarashka ku baxaya iyo waxa soo geli karaa sida ay isu waafaqayaan hooyaday waxay ahayd inaan u sharaxo wax walba sababtoo ah markii aan helo mushaarkayga dhammaadka bisha waa inaan iyada siiyaa boqolkiiba xoogaa sidaa darteed waxaan hadda u sheegay in wax aan siiyo aanan haynin waxay ugu noqotay sidii aniga oo aan haysan nolol sidoo kale ma iibsan karo waxyaabaha asaasiga ah ma sii ahaan karo sidaan oo kale sababtoo ah asal ahaan ma jecli inaan weydiisto dadka caawimaad ma jecli inaan ku tiirsanaado qof kale waxaan jeclahay inaan keligay wax qabsado sidaa darteed haddii ay sidaan wax ku sii socdaan waxaan ka fikirayaa sida mustaqbalku uu ahaan doono qaramada midoobay ayaa ku qiyaasaysa in ku dhowaad kala bar shaqooyinka Afrika oo dhan ay lumi doonaan inta lagu guda jiro aafada faafaysa ee corona arrintaas oo dhanka kalena culays saaraysa caafimaadka maskaxda ee gobolka oo dhan sababina karta inay bataan dadka qaba jirradani laakiin tani maaha markii u horreysay ee gobolka ay soo food saaraan cudurro noocan oo kale ah dhakhtar ku takhasusay culuumta nafsiga waa Dr. Jean Claude Makonso ahna madaxweynaha guddiga midowga dhakhaatiirta nafsiga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo wuxuu ahaa dhakhaatiirtii safka hore kaga jiray la dagaalankii cudurka dilaaga ee Ebola wuxuuna sheegay in baahiyaha dhanka bulshada iyo dhaqaalaha ee COVID-19 uu keenaya ay saameyn ballaaran ku keeni doonaan maskaxda guud ahaan wax weyn kuma kala duwanaa waa marka laga eego sida loo maareeyo Ebola waxaa dadka loo ogolaanayay inay socdaan iyagoo is ilaalinaya balse corona waxaa la xadidayaa socdaalka dadka gaar ahaan wuxuu si gaara u saameynayaa wadamada aan dhaqaalaha tooska ah lahayn oo dhaqaalahooda uu ku tiirsan yahay dhaqdhaqaaqyada shacabku ay sameeyaan xaaladooduna way sii murgaysaa culaysyada soo fuulaya qofka ayaa keeni kara isku buuq dhanka maskaxda ah waxaana lagu dhimi karaa taageero gobolka laga siiyo dhanka baahiyaha asaasiga Dr. Mukanso wuxuu qabaa in kaalmo xilligan la helaa ay aad iyo aad u adag tahay xilligan uu socdo corona waxyaabaha aan weynay waxaa weeye xilliga Ebola waxaa jiray mucaawino cunno oo shacabka la siiyo si ay dadku wax badan uga kaaftoomaan balse xilligani uu corona socdo oo ay shacabku haysan dhaqaale ku filan dhib badan baa taagan hay-adaha deeqda bixiya iyo wadamada laftooda dhibaato noocaasi ayaa haysata waxaana anagu xoogga saarnay tallaabooyinka fayraska corona looga hortagayo dadka ka shaqeeya wacyigelinta bulshada dhaqaale yar ayaan ku kabnaa taasoo aasaas u noqon doonto caafimaadka maskaxeed ee berri bilow wanaagsanna u noqonaysa wadamo badan oo Afrikaan ayaa la circiraya sidii iskooda isu dabari lahaayeen isla mar ahaantaana wax uga qaban lahaayeen dhaqaalahooda si leecaya waxaase laga dayrinayaa in dadaaladaasi haddii aan la laba jibaarin ay ahaan doonaan biyo coldhaanshay lana arki doono xaalad qulub ah oo Afrikaan badan ku sugan yihiin warbixintii Charles Mbogolo oo Cabdiraxmaan Nabiilina la socodsiinayay ahayd wararka ciyaarahana waxa uga door karoon in dawladda Ingiriisku ay sheegtay in bisha June dib ay u bilaabmi doono horyaalka Ingiriisku idaacaddii subaxnimona waa naga intaas sidaas iyo nabadgelyo